waxaa la filayaa roobab badan ayaa nagu soo wajahan mar taariikhda laga bilaabo 7 August ilaa 12 marka saddex xaaladood ayay abuuri karaan roobabkan wuxuu badnaan doonaa dhinaca koonfur iyo waqooyiga dalka haddaan naga bilaabo dhinacan Ethiopia roobab badan ayaa ka da'aya hadda waxaa cabsi qaba biyahaas badan inay heer u kacayaan maxaa yiraahdaa webiga hadda webiga wuxuu marayaa 7 wuxuu u saarayaan qarka inuu fataho 30 centimeter ayuu u jiraa marka dadka in laga digo waa muhiim ah in loo sheego meelahaas cabsida ka imaan karto koonfurna hadaan ku soo noqono dhinaca afgooyna u jeedaan magaalada fatahaad badan ayaa ka dhacay roobkan soo socdaan ka baqayna inay waxyaabo kale inay sii abuuraan cabsida ugu badan haddana waxay ka imaan kartaa dhinaca markaan beledweyne ka tagno waa Jowhar naftigeeda waxay taarantaa xaaladda ugu tan oo emergency taagan tahay in dadka waxaan ugu degaynaa in meelahaas ay ka fogaadaan anaga muhiimad waxaan leeyahay nafs inaan badbaadino markaan aan usii dhinaca kale ee mowjado kale imaan karo oo badda dhinacaas kaluumaystada jubbooyinka waxaa ka dhacan jasiiradaha maxaa yiraahdaa u dhow koonfurta Kismaayo dad badan ayaa ku xoolo beelay meesha doomankii ayaa ka qaramay guryo badan ayaa ku baaba'een wili meesha gurmad sida loogu filan lama gaarsiinin waxaan ku focus ku ahayn maxaa yiraahdaa koonfurta marka taasna hay'adaha waxaan ka codsanaynaa inay fiir gaar u sameeyaan meelahaas ay tagaan dabeelahaasna imaan karo marka khatarteeda ay leedahay yaa sahal laga dhigin anaga waan naga digniin inaan waajibkeena inaan gaarsiino waxyaabaha ka imaan karno wax halis ah waa muhiim waagu hore fursadaan ma jirna alxamdulillah maanta awoodaan u leenahay xaruntan aan sameysanay inaan gaarsiin karno luqad ajnabi wuxuu ku soo bixi Ingiriis ku soo bixi jirma awoodaas ma lahayn maanta af Soomaali ayaa lagu sheegayaa waana gaarsiinana waa sii wadeen ad maasantiin wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyo xarunta qaranka waxay si gaar ah uga digaysaa dadka ku nool hareeraha ee webiga Shabeelle iyo kalluumaystada iyo dadka ku dhaqan hareeraha ee xeebaha marka talooyinka loo baahan yahay in dadku qaadaan waa number 2 waa in ay si guud uga digtoonaadaan khataraha aan soo sheegnay 2 in ay ka fogaadaan dhulka hooseeya ee suurtagal tahay inay biyaha roobka isku tagaan 3 in ay ka guuraan meelaha ay ku nugul yihiin labada webi Jubba iyo Shabeelle number 4 in ay la socdaan warbixinta aan soo saareyno oo aan warbaahinta soo dhigano insha Allah